Mirka Somaliland u fadhiya dalka Sweden ee Sakariya Xasan Wacays ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay guud ahaanba gobolka cagaaran ee Gabiley. Soo dhaweyntan ayaa waxa si ballaaran uga qayb qaatay maamulka heer gobol iyo heer degmo, wasiirka wasaaradda warshadaha, agaasimaha madaxtooyada Khadra Xaaji Kayd, waxaana sidoo kale halkaasi gacmo furan ku soo dhaweeyay madax dhaqameedka, cuqaasha, dhalinyarada iyo aqoon-yahanka degmadaasi Gabiley. Waxaana dhammaanba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadaladoodii ka mid ahaa. waxa maanta muuqata in dhammaan shacabweynaha reer Gabiley looga mahad celiyay inuu xushay qofkii ku habboonaa ee ku munaasibka ahaa ee qaaliga ahaa oo uu yidhi Sakariyow waxaan kuu dirayaa safaaradda Jamhuuriyadda Somaliland ee dalka Sweden si aad himiladeenna iyo hadafkeenna iyo yoolkeenna mustaqbal aynu hiigsanayno inaad halkaa gaadhsiiso. sidii ay soo dhaweeyeen dadka abaartu xalashay ka soo gubay gobolada bariga ee u dejiyay beerahoodii ugu fureen arrintaas oo ah arrin aad iyo aad runtii xisbi ahaan aanu ugu haqalinayno. runtii anigoo ku hadlaya afka gobolka Gabiley dadweynaha inta halkan joogta inta maqan dhammaantayo zabiirka waxaanu ku soo dhaweynaynaa gobolkiisii gurigiisii waxaanu leenahay ku soo dhawow. waxaan reer Gabiley kula faraxsanahay soo dhaweynta ambaasadoorka Sakariya Xasan Wacays oo leeyahay soo dhawow iyo madaxda jaaliyadda kala socda. aad baan idinka waxaan celinaynaa ka soo qaybgalka iyo sida qiimaha leh ay u soo dhaweynay ambaasadoorka iyo xubnaha galbiyeeba shacabka reer Gabiley sida diiran ee sharafta iyo karaamada leh u soo dhaweeyay baa idinka mahad celinaynaa. hadalka dheeraaday dadka qiimaha badan leh kala duwan goobta jooga dadweynaha xooggan sida weyn u soo abaabulay waxa soo dhali waxay ka turjumayaan miisaanka uu leeyahay ambaasadoor Sakariya Xasan Wacays. waxaan aad iyo aad halkan aynu maanta isugu nimid waa soo dhaweynta Sakariya Xasan Wacays. soo dhaweynta Sakariya Xasan Wacays waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaheena qaaliga ah ee gartay miisaanka uu dalka iyo dibaddaba uu ku leeyahay Sakariya Xasan Wacays. dadweynaha reer Gabiley waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha badan leh ee ay halkan ku soo dhaweeyeen ambaasadoor Sakariya Xasan Wacays. waxaana gabagabadii munaasabadaasi soo afmay safiirka wadanka Sweden ee maanta sida diiran loogu soo dhaweeyay magaaladan. waxaanu soo dhaweyntan loo sameeyay uga mahad celiyay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gabiley iyo maamulka gobolka Gabiley. halkan uga mahadnaqo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ii gartay xilkan ama mas'uuliyaddan intaa ka bacdi waxaan u mahadnaqayaa gobolka aan ka dhashay ee Gabiley ee maanta caaqiladeedii salaadiintii ay intaa u soo baxeen dadweynihii faraha badnaa ee cadceedda taagnaa aad baan idinka mahadnaqayaa.